maamulka jaamacadda Golis ayaa ugu deeqay ciidanka ammaanka ee gobolka Togdheer culum ku tacalluqda ilaalinta nabadgelyada taasi oo lagu baran doono jaamacadda Golis waxaana ay arrintan noqonaysaa markii ugu horeysay ee jaamacadda Golis ee gobolka Togdheer ay bilowdo olole noocan oo kale ah taasi oo lagu sugayo ammaanka guud ee gobolka iyo kan Somalilandba ciidanka ammaanka ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa arrintan waxay wax weyn ka tari doontaa heerkooda aqooneed taasi oo ay jaamacadda Golis muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku hawlaneen inay si toos ah xidhiidh ula yeelato ciidanka Somaliland maamulaha guud ee jaamacadaha Golis Ciid Axmed Xasan oo isagu madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida ay jaamacadda Golis ugu hawlan tahay inay la shaqeyso ciidanka booliska waxaana uu sheegay in aanay arrintan ahayn markii koobaad ee ay jaamacadda Golis ka bilowdo olole noocan oo kale ah waxaase uu sheegay in gobolada Somaliland ay ka bilowday arrimo noocan oo kale ah ilaa intii ay jaamacadda Golis ka jirtay dalkan Jamhuuriyadda Somaliland doctorka guud ee jaamacadaha Golis waxa uu xusay in jaamacadda Golis ka qalin jabiyeen 30 sarkaal oo isugu jiray ciidanka booliska iyo kuwa asluubta ee Somaliland dhanka kalena waxa arrintan aad u soo dhaweeyay ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Somaliland ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer iyo qaybaadka ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Yuusuf Shire Cabdi oo isagu arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu soo dhaweeyay la markaasna ugu baaqay dadkan shacabka Somaliland isagoo munaasabada ka faa'iideysanaya in la shaqeeyaan ciidanka ammaanka ee gobolka Togdheer munaasabada ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan iyo waliba gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay munaasabad sidoo kale shahaadooyin lagu gudoonsiinayay sidii ugu sareysay ee kaalmaha sare ka gastaxankii jaamacadda Golis ee magaalada Burco runtii gabagabadii Cabdixakiin Maxamed Cabdullaahi oo maamulaha jaamacadda Golis ee magaalada Burco ayaa isaguna waxa uu ku dheeraaday sida ay jaamacadda Golis ugu heelan tahay horumarinta gobolka Togdheer waxaana uu sheegay in ay jaamacadaha Golis kala dhicin isla markaasna ay gobolada Somaliland oo dhan ka bilaabi doonaan olole noocan oo kale ah